o que acaba de fazer Marcus Rashford no primeiro remate da equipa do United. وبرنامج عيارها تضوات كان وحا ugu xiiso badnaa ciyaarta reer Itixaad iyo Shayaadiinta Guduudan waa Manchester City iyo Manchester United oo ka dhacday guriga Manchester City ciyaartan ayaa waxa si gaar ah indhaha ugu hayay taageerayaasha Liverpool iyo Arsenal oo doonay in Man City la kufsado oo ciidda la cunsiyo si horyaalka looga cishto xilli ciyaareedkan balse reer Itixaad waa ay diideen warkaas oo waxay doonayeenba in mar un ay soo qabtaan kooxda hoggaanka hayso ee Liverpool Manchester United ayaa inta badan lagu ogaa in Man City gurigeeda ku garaacdo waxaana daqiiqada 8aad ee ciyaarta gool la yaabo ka dhalay Man City Marcus Rashford balse waxa dhacay waa mid taariikhda gashay oo ay United iloobi doonin United kaliya ma ahe taageerayaasha Liverpool iyo Arsenal ayaaba iska aamusay Phil Foden ciyaaryahanka da'deer ee ay City ku dhaarato ayaa kooxdiisa u dhaliyay gool la mid ah kii uu dhaliyay Rashford Foden oo jaha kasta ka weeraray ciyaartooyda Man United ayaa mar kale ka dhaliyay Shayaadiinta Guduudan waxayna durba ciyaarta isku bedeshay 2-1 halka Haaland asagoo jaanisi qaali ah horan u soo cunay ayuu ciyaartii ku soo afmeeray 3-1 sidaas ayayna ku soo idlaatay ciyaartii ka dhacday garoonka Etihad ee Man City Liverpool sidoo kale waxay 1-0 kaga badisay Nottingham Forest Chelsea bareejo 2-2 ayay la gashay naadiga Brentford Arsenal ayaa wacdaro ka dhigtay garoonka Bramall Lane ee Sheffield United waxayna si arxan darro ah uga tunteen Sheffield United oo ay marti u ahaayeen Arsenal ayaa ciyaar cajiib ah soo bandhigtay Sheffield United waxay ku wareereen in kooxda ay la dheelayso ay tahay Arsenal mise waa duul meel kale ka yimid oo waxa garoonka ka dhacay ma ahayn wax la dhihi karo ciyaaro kaliya ee waa mucjiso daqiiqadii 5aad ee ciyaarta shabaqa Sheffield waxa goosha ku bilaabay ciyaaryahanka reer Norway kabtanka Arsenal Martin Odegaard kadib kubad isu dhidhiib ah oo si wanaagsan loo soo dhisay uu asagu u dhiibay Martinelli kadibna Martinelli ayaa baas qurux badan siiyay Odegaard oo shabaqa ku garaacay intaas kuma ekeene Arsenal waxay iskaga daashoonaysay aaga goolka Sheffield sida ayakoo tababar ku jira difaacyada naadiga Sheffield ayaa noqday baastimiro aan reebi karin weeraryahanada Arteta oo sida madaafiicdi u weeraray kooxdaasi difaacyadaas ayaa ahaa kuwa jahada ka weeraray noqday caag salka ka duleelo oo waxa mar kasta dhaxmarayay baloon kasta oo la soo tuuro 13 daqiiqo oo ciyaarta baloon uu Bukayo Saka sida madfac u soo halgaaday oo isku laabay difaaca Sheffield United oo lagu magacaabo Bogle 15 ciyaarta ciyaaryahanka reer Brazil Gabriel Martinelli ayaa dhaliyay goosha 3aad Kai Havertzna asna goolkiisa qorshaha guusha kama marneen Declan Rice-na wuxuu yiri anna waa ika oo wuxuu dhaliyay goolkii daqiiqada 39aad weerigii hore ciyaarta Arsenal waxay ku nasatay iyadoo sidata 5 gool wareegii labaad ciyaaryahanka Arsenal wiilasha uu Arteta macalinku u yahay halkii ayay jihaadkii baadi goobka horyaalka ka sii wadeen oo ay ugu dambeysay 20 sano ka hor daqiiqada 59aad difaaca midig ee Arsenal Ben White ayaa ciyaartii iyo filimka Sheffield soo afjaray gooshi 6aad ayuu dhaliyay shabaqa kooxda garoonka Bramall Lane ayaa ahaa mid goolasha sida roobka ugu da'ayeen ciyaartina 6-0 ayay ku dhamaatay horyaalka Wilsonka ayaa la isku hayaa Liverpool City ayay la ciyaari doontaa axada soo socoto halka Arsenalna ay la dheelayso Brentford barnaamijka ciyaaraha toddobaadka waa naga inta waxaana ilna socodsiinaya anigoo Xasan Ayman tan iyo kulanti dambe nabadgelyo